dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay gabi ahaanba mamnuucday mudaharaadada ay sameynayaan dadka danyarta ah ee mooto bajaajleyda ah oo runtii dowladdu ay saartay ama ay ku soo rogtay cashuur markaas aysan awoodeen badi bajaajleyda ayaa waxa laga biilaa qoysas badan oo Soomaaliyeed iyadoona dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale ee Soomaaliyaba ay tahay mootadu gaadiidka u shaqeeya bulshada isla markaasna laga biilo qoysas kumanaan gaaraya oo ku nool guud ahaan dhulka Soomaalida balse markii dowladda Soomaaliya ay cashuurta ku badisay ayaa mooto bajaajleydu waxay bilaabeen in ay shucuurtooda muujiyaan si fariintoodu ay u gaadho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan madaxda dowladda oo ay ku codsanayaan in markaasi laga dhimo cashuurahan sharci darrada ah ee aysan awoodin dusha laga saaray iyadoo si silmiya ay bajaajleydu ay u soo baxday mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir waxay bilaabeen in ay handadaado iyo hanjabaado ay u diraan iyagoona mamnuucay in markaasi aan banaanbax shucuurta bulshada lagu muujinayo aysan kaba dhici karin bay dhaheen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa soo food saaray nolol xumo iyadoona dhaqaale xumo baahsan ay ka jirto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ama guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto oo dhan ayaa haddana waxa jirta in maamulada iyo dowladaha ka jira ee dalka Soomaaliya ay dadka bajaajleyda ama dadka danyarta ah ee ay saarayaan cashuuro aysan markaasi awoodin yar la dhageyso muuqaalka mas'uul ka tirsan guriga gobolka ama mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo arintaas ka hadlaya saakay waxa jidka Maka al-Mukarrama ila Tarbiyana waxa ka dhacay banaanbax ay sameeyeen dhalinyaro mooto bajaaj ku shaqeysata ayaga oo ka cabanaya lacago laysanka oo lagu siyaadiyay iyo ganaaxiyo lacaga ah iyo waxyaalo saas ay ka cabanayeen laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed sida u jeedaan wuxuu cadeynayaa oo uu si jees u leeyahay mas'uulkan hadlaya cashuuro iyo lacago lagu kordhiyay ayay ka mudaharaadayaan haddii dadku aysan aragtidooda cadeyn haddii ay bulshadu aysan waxa culayska ku aysan sheegin waayo cidda ama dowladda haddaysan dowladeeda gaarsiin waayo cidda ay gaarsiinayaan badi magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed siiba banaanbaxyada khuseeya arrimaha cashuurta khaladaadka dowladdu ay gasho runtii waxay u dhacaan si silmiya iyadoona dadkaas ay khuseyso arintaasi lagala hadlo balse dowladaha ama maamulada ee Soomaaliya ka jira ayaa badi waxay u adeegsadaan dadkaasi rasaas nool leeyla dhacaan si ay u caburiyaan shacabka aragtidooda dhiibanaya fikirkoodana ka hadlaya kana hadlaya cashuuraha iyo tacadiyada inta badan loo geysanayo balse dowladda ama maamulka hadba meeshaasi ka taliya ay bulshadu aragtidooda ku dhiibanayso ayaa iyagu cadaadis u isticmaala bulshada Soomaaliyeed ee dowlad la'aanta iyo burburka iyo dhaqaale la'aantu ay sida weyn u afaysay